bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Ceegaag ayaa cabasho xooggan ka muujiyay anteenada iyo internetka shirkadda Samtel oo aan ka shaqayn degmadaasi waxaana ay bulshadu baaq dheer u direen madaxda ugu sareysa shirkadda isgaarsiinta ee Samtel oo ay ka codsadeen in degmada Ceegaag laga hirgeliyo adeegyada kala duwan ee shirkaddaasi oo ay ugu horeeyaan taawarka iyo internetka shirkadda Samtel oo iminka ay ugu baahan yihiin si degdeg ah iyadoona degmada Ceegaag ay tahay degmo ay ku nool yihiin bulsho aad u tiro badan baahi weyn ay u qabaan adeegyadaasi waxaan halkan baaq uga dirayaa shirkadda Samtel baan rabnaa inay naga soo gaadho adeegyadeeda haday internet tahay iyo haday isgaarsiinta kale tahayba inay meesha xarun looga furaan oo birna looga taagan waxaan la hadlaynaa Samtel baan u la hadlanaa iyo madaxdeeda ugu horeeyo Saciid Maxamed Saciid iyo madaxda kale cid kasta oo Samtel ama dahabshiil oo hawshan qusayso degmadii oo dhan halkan ay toban tahay rag iyo dumar waa la joogaa waxa weeye haday biilasha tahay haday ganacsi kala tahay haday adeega kala tahay waxa weeye dhibaato aad iyo aad u ballaaran baa deegaanka ka haysata anteena la'aan darteed kaadharkii lacagtii lagu soo diro kama baxayso haday qof shirahan garaac ma isticmaali karayaan qaar baa free looga dhigay freegii ma anteenaba ma joogto marka waxa weeye dhibaato aad u ballaaran baa ka jirta marka waxaanu ka codsanaynaa waxa kaleba taawuradu ay ugu taagan yihiin wax looga qabto taawur loo taago oo jooga degmada Ceegaag waxaanu ka cabanaynaa in taawur la'aan shirkadda Samtel oo dadku aad iyo aad baahi weyn u qabo in loo keeno iyadoo ay ka qaadan karaan ilaa 5,000 oo qof oo taawarka ay qaadan karaan ku xidhnaan karaan shirkadda Samtel aad iyo aadna loo xiiseynayo kuwii horena ka xumaadeen oo ay anteena la'aan u wada tureen kaadhka hore waxa loo wada turay anteena la'aan marka hadda waxaanu ka codsanaynaa shirkadda inay taawarkii noo keento degmada Ceegaag ay noo keento taawarkii waxaan ka codsanaynaa shirkadda Samtel inay naga soo hagaajiso qaybta connectionka ama teenka marka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in deegaanka waa deegaan ballaaran oo Samtel lagu isticmaalo in laga soo gaarsiiyo adeega Samtel madaxda kale ee Samtel ka shaqeysa ateenadii cidhiidhi bay nagu noqotay 24 saac lacag baan ku shubanaa lacagtii ku hadli kari weynay biilashana loogu soo diray dahabka nooga soo bixi weyday dib iyo dhibaato naga haysata dhibaato aan yareen baa naga haysata oo ateenada naloo soo daayo oo naloo hagaajiyo waa naga go'an tahay waana naga xun tahay waxaanu idin leenahay dahabkii waanu furanay kaadhadhkii haddana dib bay muxuu nooga wada xidhmeen markii ateenadii waxba noo soo qaban weyday waxaanu idin ka codsanaynaa inaad ateeno noo keentaan sida u dhaqsaha badan marka waxaanu ka codsanaynaa maamulka shirkadda Samtel inay naga hagaajiyaan oo ay naga caawiyaan oo ay si degdeg ah wax uga qabtaan anteenada iyo habkii shirkaddaasi ay u shaqayn lahayd shacab weynaha degmada Ceegaag oo ka cabanaysa ateen la'aanta ka taagan shirkadda Samtel oo aad loogu xiiseynayo haday tahay xagga qiimaha oo ay kaga jaban tahay Telesom deegaamada nagu hareeraysan waxay isticmaalaan shirkadda Samtel bay isticmaalaan